بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله dhammaantiin walaalaha ay fariintan soo gaarayso waxaan idinku salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin rajeynayaa khayr camal wanaagsan cibaado suuban iyo caafimaad fariintan caawa waxaan u duubayaa waxaa isa soo taraya fariimo tiro badan oo ka imaanaya Kenya iyo Soomaaliya kuwaasoo ay soo dirayaan iskaashatada beeraleyda qaadka Kenya galabtana waxaa iyaguna sidoo kale shir jaraa'id qabtay iskaashatada beeraleyda daroogada xaaraanta ah ee Soomaaliyeed ee qaadka waxaan carabka ugu sii xujinayaa xaaraan inuu yahay culimada islaamka oo dhan ayaa isku raacday nimankaas odayaasha ah oo press release ka qabstay oo goobjoog ka hadlay horta waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada waxaa hadalkiina sidoo afhayeenkiinu sheegay Mr. Qoje 30 sano inaad qaad ka ganacsanayseen waxaa la oran karaa 30 sano ayaad waxaad ka talinayseen sidii bulshadan loo gumaadi lahaa qoysaskooda loo dumin lahaa reerahooda loo baabi'in lahaa caafimaadkooda maalkooda loogu guri lahaa dawladda shisheeye caruur Soomaaliyeed gaajo inay ku hoydaan oo shilinku aabihiis haystay aad ka furataan baad sida aad idinku sheegteen 30 sano ka shaqaynayseen horta waxaan idin oran lahaa rag waaweyn oo odayaalana waa tihiin fursadan ilaahay idin siiyey oo qaadkiiba la waayay waxba ha u dacwoonina shir jaraa'idnaha qabsanina alxamdulillah inta dhahdaan waa fursad 30 sanaad xaaraantaas faraha kula jirteen oo dhiiggaas masaakiinta miiranaysay walaalayaal ka dhaqaaqa kama soo xajin kartaan sadaqa kalama bixi kartaan gubad iyo kuleel baa wajigiina ka muuqda wixii aad 30 sano ku dhex jirteen kuleel umad ka sii qaadaysaan sababtoo waxaad faraha kula jirtaan ayaa xaaraan ah raggaas odayaasha waxaan leeyahay ana xushmaynaya walaalayaal oo aakhiradiina u tura oo ehelkiina u tura oo Soomaali u tura oo inta uga hara waxba ama Xasan Sheekh Maxamuud mas'uuliyiin kala ha siiyo ama ehelkiis ha siiyo ama Kenya ha siiyo idinku intaas uga hara intaas 30 sano oo alaysinka saas hadba isugu bedelayseen si walba ku kunteen ma qiyaasi kartaan intaas 30 sano inta damage bulshadan gaartay inta qoys ku duntay inta agoon aabale maanta Muqdisho iyo Soomaaliya taala agoon aabale waxaan ka wadaa caruur aad aabahood waasheen cilaajka ku jira meel kale ha ka raadinina walaalayaal booqda bal intaad shirarkan qaad ku jirtaan Xabeeb Hospital soo booqda soo arka macaamiishiinii hore oo aad ilkaha ka daadiseen oo aad maskaxdooda dhaawacdeen oo aad qoysaskoodii iyo qalbiyadooda dhaawacdeen arka hooyada 80 jirka ah oo maalin walba jeegga yarkaayo caanaha iyo bacda raashinka duurka ula soo dhaloolaysa oo aad wiilkii curadkeeda ahaa dhabarka ka jabisay oo ay maalin walba isbitaal ugu tagayso arka waxa India iyo Kenya iyo meel walba daadsan oo leeyahay beerkii baa dhamaaday iyo kilihii baa dhamaaday arka dadka wajiyadooda iyo ilkahooda iyo saameynta uu qaad ku leeyahay ilaahay uga baqa ilaahay ni abuurtay uga baqa waxba shir jaraa'id inta qabsataan indha aday annagoo axad muddo xalaal ku dooday guddiga iskaashatada qaad ka ganacsada xaaraan maqdaca inaad ka ganacsataan oo aad waliba TV-ga la soo fariisataan oo aad waliba ku doodaan horta Soomaali baad ka aragteen in la idin tuuriyay ahayd waxaan ilaahay walaalayaalow ilaahay u noqdo oo inta uga hara masalada labaad idinka intaasaan idin oranayaa ilaahay uga hara ilaahay u noqda ka farxasha ka cibaadaysta ilaahay dambi dhaaf weydiista rabbi subxaanahu wa ta'ala waa ghafuur rahiim wuu idin dambi dhaafayaa rabbigii uga toobad keena yaa allah gacmaha kor u taaga irsaaqad xalaalana ilaahay baa idin siinaya ka dhaqaaqa walaalayaal intaasaan idin kula talinaya waxa ii xiga ergada Kenya oo iyaguna cabaadayso leh leysinkii baa nala ka faramaroojiyay cidda loo faramaroojiyay iyo madaxweyne Xasan Sheekh
ka hor dhici maayo warkaas meeshuu dhaco waan arkaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed haddii uu siiyey laysin shati uu leeyahay ka ganacsada waxaan leeyahay madaxweynuhu ha akhriyo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 2 oo uu waliba ku dhaartay oo inaan lagu kicin wax ka soo horjeeda diinta islaamka iyo shareecada dastuurkuba kuma dhaqaaqi karo sharcina lagama dhigi karo wadankana lagama fuli karo wax diinta islaamka ka soo horjeeda haddiidnan diinta iyo kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala noo soo dejiyey hadday ka leexateen walba warqadahan xukunka iyo dastuurka aad samaysateen xushmeeye madaxweynaha arrintaas ka hor dhici maayo cid ay u xiran tahay ku tirikuteentaas ma rabo inaan dad sumcadood iyo sharaftood ku dego waa sugaynaa laakiin mas-uulkii asagoo xil u haya oo jago waddanka ka haya isku daya dhinaca kalena inuu laba afleeyo qaad ka ganacsado maxkamad baan la tegaynaa maxkamad ayaan inta u furno victimskii dadkii baaba'ay baan maxkamadda la tegaynaa mas-uulka Soomaaliyeed waxaan leeyahay idinkuna walaalayaalow mas-uuliyiin baad qaadeen waxa ka jira anigu magacyo halkan ka sheegi maayo markay soo baxdo oo ay official noqoto baan ka hadli doonaa laakiin waxaan leeyahay mas-uul Soomaaliyeedow waxaad xasuusataa maalinkii xilka lagu dhaarshay oo aad tiri waxaan ka shaqaynayaa danta dadka iyo dalka adigaan su'aasha kugu soo celinayaa ilaahay baan kugu dhaarshay inaad daroogo inta keentid caruur Soomaaliyeed qadisid hooyo Soomaaliyeed ilmo ka keentid curadiyadii Soomaaliyeed curyaamisid ma danta dadka iyo dalka ku jirta war ummad yahay ilaahay ka baqa ummadda Soomaaliyeed lagu korgorgortamayo iyo shacab weynaha waxaan leeyahay waxa la isku haystaa waa wiilashiinii kaca oo dareema culimadiina aqoonyahankiina dhalinyaradiina ka gilgisha gumaystaha cagaaran 29 diyaaradood oo duqaynaysa markaan leeyahay duqayntu kaliya maaha in hub lagula dhaco qaadku waa hub cagaaran oo lagu dumiyo maskaxda ummadda Soomaaliyeed oo lagu fariisiyo muruqa ummadda Soomaaliyeed oo maankooda lagu dooriyo maalkoodana lagu garto shacbiga ka kaca oo diida qaadley baa waxay leedahay waxaan balansanaynaa mudaaharaad weyn waxaan leeyahay shacabka ayay mudan inay mudaaharaadaan oo ay dhahaan dooni mayna xaaraantaas ummadda Soomaaliyeed waxay meelay joogtaanba maamul goboleed iyo muqdisho iyo meel walba waxaan leeyahay bahalkaas ha loo wada istaago heeriyada ha la iska rogo heeriyaana saaranay dad korkooda lagu gorgortamayaanahay heeriyada ha la iska rogo fariinteeda u dambaysa waxaan u dirayaa walaalaha qaadka cuna walaalayaal saxaafadaha la isdhaafsanayo Kenya halkan midiya sifaysanaysa Soomaalida isku haysata waxa la isku haystaa waa ilkiin waxa la isku haystaa kan anaa dilaya maya anaa dilaya iida idinkuna inaad dhahdaan qaadkii Kenya la fasaxaya kana la fasaxaya waa ayaan daro ragga qaadka cunow tashada oo laftigiinu ilaahay u noqda oo naftiina u tura oo xaasaskiina u tura oo waalidiintiina idinka walaacsan u tura oo awlaadiina u tura oo iska daaya qaadka oo ilaahay u dhawaada oo shaqaysta oo sharaf yeesha oo dalkan iyo dadkan waxay u baahan yihiin bulsho xayi ah oo miyir qabta haddii la rabo nation building in la sameeyo waa lagu baahan yahay adiga qaadka cuna sababtoo ah maalinkaad dhalatay hooyada iyo aabbaha saasa kor inta lagu qaaday waxa la yiri alla wiil baa noo dhashay ilaahow ka dhig kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca bal eeg oo u fiirso hanka waalidkaa meeshuu gaarsiisan yahay adigana dal iyo dad iyo diin aad anfacda iska daayay ilkahaagii baa la isku haystaa damiirkiina haddayba inaba raganimo idinku hartay markanoo kale waa markii laga luqluqan jiray ka luqluqda ka dhaqaaqa aad baan idiin salaamayaa daawadayaasha fariintan daawaday walaalayaal waxaan idinka codsanayaa sheerkuba hiil buu galay fariintaas sii faafiyo aad baan idiin salaamayaa meel aad joogtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala khilaafaadka iyo isjiidka iyo naga joojiyo ilaahay ummadan laabtooda haysu salaaxo ilaahay dalka iyo dadkaba ha noo hagaajiyo waa walaalkii qaadid oo idin leh
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.